kulankani gudoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan ee dowlad goboleedka Hirshabelle Mudane Yuusuf Axmed Hagar oo la qaatay qaar kamid ah waxgaradka gobolka Hiiraan ayaa ahaa mid looga areensanayay sida ay u qabsoomi lahayd gobol nabadeed oo la doonayo in lagu soo afjaro colaadda gaamurtay ee muddada dheer ka taagneed deegaanada Deefu iyo Kabxanle ee gobolka Hiiraan taasoo u dhaxeysay beelo walaalaha wada degan deegaanadaasi waxaana gudoomiyuhu kulanka uu la qaatay waxgaradka mid kamid ah beelaha colaadda u dhaxeysay deegaanada Deefu iyo Kabxanle ee gobolka Hiiraan waxaana goobjoog ka ahaa kulanka gudoomiyuhu la qaatay waxgaradka xildhibaano iyo wasiiro ka tirsan dowlad goboleedka Hirshabelle gudoomiyaha gobolka iyo odayaasha dhaqanka ee kulanka qaatay ayaa waxay isku afgarteen in la dhigo gogol nabadeed ee waxgaradka labada beel ay kaga wada hadlayaan wixii dhib ah ee dhacay si loo dhameeyo colaadda muddada dheer ka taagneed deegaanadaasi qaar kamid ah waxgaradka kulanka la qaatay gudoomiyaha gobolka ayaa markii kulanku soo gabagabay kadib warbaahinta la hadlay waxayna sheegeen inay ku faraxsan yihiin in la dhigo gogol nabadeed diyaarna ay u yihiin in xal nabadeed laga gaaro colaadda gaamurtay ee muddada dheer ka taagneed deegaanada Deefu iyo Kabxanle haddaan nahay qabiilka Xawaadle Maxamed haddaan nahay waxaan qaadanay nabadda muslimka oo hadii Ilaahay kuula kaliya laab ka soo goday oo in islaamka ekaysan rabna meel alla meeshii dib looga jiro nabadaan ka qaadanaynaa bacdi salaam kulankan wuxuu ahay kulan oo cilaamiyo gobernatooraha gobolka Hiiraan oo isugu yeeray shir nabadeed laba beelo walaalaha oo barnaamij ka dhaxeeyo xogaa colaada dilkii aad u dambeeyay oo ahay laba nin oo dhimatay ayuu xal ka soo gaaray beeshu wuxuu u keenay nabad in nabadda la qaato wixii wada hadal ahna lagu dhameeyo wada hadal oo aysan ahayn gacan ka hadal beeshaas aan ka raano beesha Xawaadle nabadaas oo noo keenay gobernatooraha gobolka waa qaadan waxaan halkan ka soo jeedinaynaa baaq nabadeed oo aan u soo jeedinayno dhammaan beelaha ku dhaqan gobolka Hiiraan beelahaas oo aan walaalanahay qaybo kamidana colaadan dhex mareen waxaan rabnaa colaadii in nabad lagu soo dabaalo colaad waxaan u malaynayaa wiil kuma dhasho wiila ku dhinto halkiina waxay u keeneen beeshan hadda halkan degan oo beesha Xawaadle ah waxay sheegeen nabadaan soo qaadnay nabad qaata nabadaas waa qaadanaynaa waana soo dhaweynaynaa waana nabad muslim waxaanan haddana u xil saarnay ayagii in ay sidoodii ay u wadaan nabadii intaasan waxaan leeyahay xaq uu noo keenay gudoomiyaha wuxuu noo keenay kalimatul xaq nabadu noo sheegay geedka dayibka waa timir waa la hergalaa miruu leeyahay kalimadda fiican saas weeye midda xaq oo maxaan ahayn khabiiska ana qarad dameerga lagu sheegay wax faa'iido ma leh midda xaq uu noo keenay nabadu noo sheegay waana qaadanay haddaan nahay beesha uu warka u keenay oo Xawaadle warkaas waa qaadanay nabadaas si toos aan u qaadanay xildhibaano iyo wasiiro ka tirsan dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa iyana ku baaqay in xal nabadeed laga gaaro colaadda muddada dheer ka taagneed deegaanadaasi isla markaana u mahad celiyay sida odayaasha dhaqanku ay maanta u aqbaleen gogosha nabadeed in la dhigo waxaan maanta aad u soo dhaweynayaa oo aad u soo dhaweynaynaa odayaasha warbixintii loo keenay uu hogaaminayay gudoomiyaha gobolka nabadda ay qaateen aad ayaan ugu mahad celinaynaa waxaana rabnaa inay meeshaas ay kasii socoto ilaa laga gaaro salkeeda oo nabadeed oo aan uga shaqaynayno labada beelood oo dhibaatooyin badan soo dhex mareen oo dadkaas ay mataqaanaa muddo badan jiitamaysay in gobol nabadeed loo dhigo nabadda wada qaataan inay nala aqbaleen inay diyaar u yihiin nabadii iyo walaalnimadii iyo ehelnimadii iyo qaraabanimadii in lagu soo noqdo aadaan uga mahad celinaynaa waxaa maanta halkan isugu yimid oo aan isugu yeernay ka maamul ahaan haddii aan nahay labada gol ee Hirshabelle iyo maamulka gobolka Hiiraan odayaasha dhaqanka ee beesha Xawaadle annagoo u warbixinay dhibaatadii iyo xaaladihii ka taagnaa meeshan oo maalin dhexdaas labadii nin oo la dilay ugu dambeysay xalkeedii aan xoogaa soo dhaweynay waxaana ugu baaqnay gogol nabadeed wayna naga qaateen gudoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan ee dowlad goboleedka Hirshabelle Mudane Yuusuf Axmed Hagar oo gabagabadii faahfaahin ka bixiyay ujeedka kulanka ayaa sheegay in odayaasha kulanka uu la qaatay isku afgarteen in la dhigo gogol nabadeed odayaasha waxgaradka labada beel ee dirtu ka dhaxeysay kaga wada hadli doonaan halka gaarista colaadda deegaanada Deefu iyo Kabxanle isla markaana la dhigi doono gogoshaasi nabadeed 23 bishan 12 ee December aynu ku guda jirno maamulka gobolka Hiiraan oo qaban doono gogosha nabadeed waxgaradka labada beel ay kaga wada hadli doonaan arrimahooda waxgaradka labada dhinacna ugu baaqay in laga shaqeeyo nabadda maanta shirkan wuxuu ku saabsanaay gogoshan waxay ahayd gogol nabadeed oo la isku la jaan gooynay
maalinkii gogoshii la iskugu imaan lahay oo labada beelood iskugu imaan lahayd maalinkii la dhigi lahaay iyo meeshii la dhigi lahaay aan iskula jaangoynaynay annaga oo maamulkii gobolka hiiraan ah iyo xildhibaanadii hirshabeelle ah oo isku dowladdii hirshabeelle ah iyo odayaasha beesha xawaadle oo labada beelood oo hadda shaqaaqooyinku ay ka dhex jireen beel ka mid ah sidaas daraaddeed waxaan isla go'aansannay in nabadda wax walba looga tanasulo nabaddana aan isla qaadano waxaan isla go'aansannay in muddo 13 maalmood ah inaan iskugu nimaado bishaan 12aad ee sanadkan maalinkay 23 tahay ayaan halkaan iskugu imaan doonnaa haddii alla idmo biriyaan inta xawaalahan maanta u sheegnaan redeefowna u soo sheegaynaa maantana ballantu waxay tahay shirku wuxuu ku saabsan yahay ama kuwaan aan maanta ugu yeerinay ama kuwaas aan biri ugu tegaynaa wakhtiga la isku imaanaa oo gogosha la dhiga wakhtiga qoladan maanta waa u sheegnay waana naga qaateen wakhtigana annagaa jaangooynay khaalid maxamed ismaaciil kacase telefishinka caalamiga Soomaali News Beledweyne